بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جنرال عبد القادر شعالي الديني waxaan jeclahay in aan la wadaago maqaal kooban muwaadiniinta Soomaaliyeed kaas oo aan ugu magac daray waa kuma daljir. bulsho kasta oo dal ku wada nool waxay ku fogan tahay ama ku hawlan tahay hawlo ama xirfado kala gedisan. hawlahaas kala gedisan ay qabanayso oo u ah tiir ummadaas meesha ku wada nool. haddii aan wax ka soo qaado ama wax ka soo qaadano hawlahaas kala gedisan waxaa ka mid ah kuwa difaaca dalka iyo bulshada nabadeeda ka shaqeeya ama ku hawlan, kuwa beeraha tabca, qayb xoolaha dhaqa, kuwa khayraadka badda wax ka soo saara, kuwa waxbarashada iyo barbaarinta ubadka soo koraya ka shaqeeya, kuwa siyaasadda iyo hogaaminta shacabka ka shaqeeya, kuwa diinta iyo dhaqanka suuban ee bulshada bara, kuwa kobcinta dhaqaalaha iyo dalxiiska ayaguna ku mashquul ah oo ka shaqeeya. intaas iyo in kale oo badan oo aanan halkan ku xusin waa wada daljirayaal. haddaba iyadoo saas ay tahay oo dadkoo dhan ay yihiin daljirayaal, markii ay timaado muxuu ahaa sidee loo kala horumarinayaa ama yaa mudnaanta koowaad la siinhayaa, waxay tahay middaas ayaa u baahan in loo bandhigo ummaddaas meesha ku nool ama shacabkaas. haddaba ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan idhaahno dadkaas shaqada kala gedisan qabanaya mudnaanta koowaad ayaa la siinaya. waxay aniga ila tahay iyada oo qadarin la wada mudan yahay, haddana waxaa mudnaanta koowaad leh daljirka naftiisa iyo dhiiggiisa u horaya dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa. haddii uusan jirin daljir nafti hura ah ma dhacayso in daljirayaasha kale ku guulaystaan shaqada dalka iyo dadka ay u hayaan. qodobka aan leeyahay Soomaaliyey dhammaantiin waxaan idinku gubaabinayaa inaad daljirkaas nafti huraha gacan la siiyo si guul loo gaaro waarta. aad iyo aad baa umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.